السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaan ku falanqeyn doonaa goosgooskii koowaad ee laga soo bandhigay qaybta 163aad qaybta 168aad ee taxanaha Gundiga Cusmaan. Fadlan hadii channelka cusub tahay daawada subscribe tii noo saar hore hadii noo joogteen muuqaalkeena la garay aad iyo aad noo maasantahay. Intaynaan guda galin muuqaalka ka hor ataan ku saliya xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadarna si toos ah inuu guda galna muuqaalkeena maanta. waxyaaba goosgooska aanu ku daawanay waxaa kamid ah marka hore oo sida koowaad ba lagu bilaabaya Cusmaan oo isla mar ahaantaasna ninkii qaraasi ahay balamiyay isagoona markaasi dowlad sameynaya ciidamada meesha isugu keenay habeenimana ay tahay wuxuuna markaasi leeyahay mar hadii Turkida ay markaasi midoobaan hal calanna markaasi hoostiisa ay ku midoobaan cid weeqi karta awoodooda ayaanba iska jirin ayuu leeyahay warkana si hoos wuxuu ugu wadaa markaasi qaraasina wuxuu rabaa asaga in la hoos imaado Cusmaanna wuxuu rabaa asaga in la hoos imaado nin walba markaasi kan kale ayuu ku maqan yahay marka midaas ayaana macquul ahayn dhanka kale waxa arkeena gabadha Bigum lagu magacaabo iyada iyo Cusmaan oo israacayaan gabadhan ciqaab in la marsiiyay ognahay oo lagu xukumay markaasi qalcadii dhibaatada meeha ka soo gaartay inay iyada xaliso isla mar ahaantaasna ciqaabteedaba ay tahay waxyaabihii halaaway inay dib u hagaajiso cashuuraadka la qaadan doonana markaasi iyada markaasi waxba inaan laga sii doonin sidoo kale taninkii beehan ahaa iyo mudana ginjaarkana labadoodana markaasi qalcada iyagana markaasi kor ka ilaalin doonaan oo ay la socon doonaan iyada marka waxa arkeena goosgooska dhexdiisa iyada iyo Cusmaan oo isla socdaan kadibna wixii u yeeranaysaa markaasi ciidamadeeda dumarka ah waxayna leedahay markaasi banaan ku soo bax markay banaan ku soo baxaan ayaa Cusmaan waxay ku leedahay markaasi mudana Cusmaan mar walba anaga garabkaaga ayaan taaganahay aqligeena iyo seefteenaba adiga ay kula jiraan waxaad adiga tiraa baanu sameeynaa ay leedahay wadada inoo furta ayaan qaadaynaa diyaarna mar walba waxa u nahan markaasi amaradaada anaga inaan u hogaansano taasoo ka dhiga markaasi Cusmaan iyo gabadhan in hawlgal isla aadeen asagana markaasi uu aaminay iyadoo arkayna markaasi Bala iyo gabadhan oo Bigum lagu magacaabo iyagoo wada sheekaysanayaan Balana ay ku leedahay markaasi waxaan rajaynayaa sidii hore oo kale inaysan dhicin oo aadan markaasi hooshii lagu xil saaray aadan ku fashilmi doonin halka gabadha kale Hazaal lagu magacaabo iyadana ciyaarta daawada ay keed oo kar ay ka daawanayso wax meeshaas ka socday ninkeedan xalqadii aad la soo dhaaf waxa ogeeyna markaasi inta ka tiinad qurxistay ninkii dhahay waaye ma laga yaabo nin geesi ah oo sida buuraha oo kale u adag inuu xaas la'aan si ahaado oo katiinka banaag kale ay u sii diyaarsaday oo marka waa iyadii markii la soo deeyayna iyadii ayaaba qaadatay katiinkii marka waa oday oo naagtiisa hadda xabsi inta la gashay naag kale raadihay buu ahaa xogaa yar ayuu oday wasaqan yahay laakiin sida kale waa iska fiican yahay waxaana filaa markaasi inuu rabay inuu Bigum ku qabsado isla mar ahaantaasna khilaafkoodu uu sidaas ku xaliyo qalcadana markaasi asaga markaasi lagu soo wareejiyo laakiin xaaskiisii ayaaba la soo fasaxay oo shactaroolay iyada la sarkeed iska ah iyadoona markaasi katiinan loogu talagelin qoorteedaba galin isku xirtay isla mar ahaantaasina isku ceejinaysay oo ma uu qalminba in iska siibtay marka aan soo laabanadana Bala iyo Bigum horta in muuqaal gooni idin kaga soo sameyn doona dadkan macnaha waa isku dhagan yihiin xaalkoodana meel fiican ma tagi doono ilaa iyo adiga la isku wareeri doono meel weyn isla tagi doona dadkan oo Bigum sidaan ognahay ba waxay rabtaa hadda inay goonja dhankeeda ka soo marto Bala oo goonja oo qof iska xanaaqsan ay rabtaa inay ka faa'iideysato isla mar ahaantaasna tolka ay ku dirto dadkan ay madax u geliso liana goonja waxayba tiray Bala markii iyadii wada sheekeysanayeen war aan idinka ilaahay xalqadii aan ku sheegin ayaan jira markaan falanqeynayay Hazaal iyo Bala ayaa sheekeysteen Hazaal ayaa Bala markaasi waxay ku leedahay ma ii sheegi kartaa wiilkaaga gabadha uu soo guursan doono ee asoo markaasi aad u noqon doonto sodooda aad u noqon doonto ma ii sheegi kartaa kadibna goonja ayaa soo booday waxayna ku dhahday markaasi waa gabadhii aad ku magacaabeysay inay kaafirad tahay oo markaasina qof akhlaaq xun ay tahay waxayna la socotay gabadhii Cecilia lagu magacaabay waa taqaanaa magaceedana waxa lagu magacaabaa Holovira marka caadi ma goonja waa xanaaqsaneed Bala ta hadalkaas ee goonja ku hadashay ma uusan markaasi mid ay ku faraxdo oo waa ay ka xanaaqday iyada lafteeda marka maalmaha soo socda waxa daawanaysaa khilaafka goonja iyo markaasi dhexmari doona reerka Cusmaan oo waxay dhahdaa hataa marwa Bala hadii mar ay dhacdo in gabadha lagu magacaabo Holovira inay halkan timaado aniga halka ma sii joogi doono oo waa isaga tagi doona ay dhahday qabiilka hadii mar ee Holovira imaado aniga ma sii joogay ay ku dhahday waan ka tagay meeshan Bala waxay dhahday markaasi maalmo adag ayaa noo soo socdo oo ina sugayo marka maalmaha adag baa arki doona maalmaha adagna goonja waxa ka faa'iideysan doonto
naagta lagu magacaabo Bigum si ay Bala isaga celiso waa inay dhanka Gonja u soo martaa. halka dhanka kale ninkii Orhan ahaa iyo gabadhii Holoviran iyagoo seefo lagu hayo aan arkayna isla mar ahaantaasna xaalad ay ku xun tahay waa inay soo badbaadi doonaan. goosgooska labaad ayaana lagu cadeyn doonaa qaabkii ay ku soo baxsan lahaayeen iyo cidii caawin lahayd, laakiin ilaa hadda lama cadeyn markaas cidda caawin lahayd. oo Cusmaankii isku dayay xitaa inuu caawiyo laftirkiisii ayaaba u xiranba ninkii Qaraasi ahaa oo shabaq ku ritay. halka ninka Saruja lagu magacaabo iyo sidoo kale taba wiilkii Yusuf lagu magacaabo iyagana isdaba taagan yihiin ayna isku dagaalayaan gabadha Faadima lagu magacaabo. wiji ayay ka raadsanayaan, laakiin ninkii Yusuf lagu magacaabo isaga adeega ayaa ka batay waana waxa looga baahan yahay isaga. halkoomar hataa inuu isjilciyo ma rabo, halka ninkan kaleetana uu gabadha ka dhawaanayo. waxaanba filayaaba ninka lagu magacaabo Saruja iyo Faadima in la isku dari doono akhiran, liana Yusuf si kale ayuu u qalafsan yahay haba iska roonaadee. inuu qof wanaagsan yahay xalqadii la soo dhaafay ayaanba ku daawanan ku aragnay kadib markuu walaashiisa ku dhahay Ruhazaal wax dambi ee leedahay malaha waana inaan cadeeyaa markaas inaysan iyada wax geysanin, isagoon og markaas inay cadow isku ahaayeen ayuuna sidaas dhahay ninkan. dhanka kale waxaa arkaynaa ninka lagu magacaabo Lucas wuxuu la sheekeysanayaa mudana Qaraasi iyo teendhada ka daba gurguurta ee marba meel uu dhigto. kadibna waxa uu leeyahay markaasi haddii aan ku dhaho waxaan doonayaa inaan Cusmaan ka soo horjeesto oo dagaal ku qaado, bal ka waran miya caawin lahayd ayuu leeyahay. Lucas dhahay kadibna Qaraasi wuxuu leeyahay waxaad doonto iga dalbo, diyaar waxaan u waay burburka Cusmaan inaan ka shaqeeyo, aniga garab ku siinaya ii sheeg, gacanta gadaalka taagan baa noqon doona Cusmaan inaa burburisana diyaar ah. qorshe cusub ayaan soo wataa ayuu leeyahay. kadib waxa ogaanaa qorshihiisaba in uu yahay markaasi dadkii Christianka ahaa ee degnaa markaasi Sogod, kuwaas oo markaasi Cusmaan hoos iimaanayay ayaa markaasi dadkii lagu diray. dadkaana fooda ayay kiciyeen kadibna magaaladii Sogod dhan ayayba gubeenba. Cusmaanna arrinkaani waxa uu sheegay markaasi dagaalyahankiisa qaaska ah magaciisa ma waaba ilaahowba marka waa iska taqaaniin de ninkii waaye ninkii dharka tulay waa. marka ninkaas u soo sheegaya Cusmaan ka bacdina wuxuu u sheegayaa in magaalada fooda ay ka socoto dadkiina la baabiinayo. Sogodna markaasi deegaanka dadku ku ahaa ee Roomaanka ee markaasi dagaal ay meesha ka bilaabeen. qorshaana waxa ka dambeeyay ninka Lucas lagu magacaabo isaga ugu talagalay in meesha la isku baabiyaba. ay kud ninka lahay waaye ninkaas u sheegay markaa. Cusmaanna markaas ayaa fiigitaan kale u soo baxaya. halka dhanka kalena arkayna ninka lagu magacaabo Lucas isagoo ciidamadiisa diyaarsadana kuna dhahay awoodda Bizanta ee leedahay ayaan doonaynaa dunida inaad tusno, diyaar soo uma tihiin markaas in awoodiina soo muujisaan. dawladda Bizanta awoodina leedahay diyaar ayaan unaan ay leeyihiin, weerartama ayuu leeyahay. waxaan arkaynaa isagoo markaas ninkani dagaal diyaarinaya kadibna oo uga soo horjeeda ninkii Cusmaan ahaa. Cusmaan iyo sidoo kale ninka Lucas lagu magacaabo waa isbaran doonaan. dagaal foolka foolo oo quman ilaa hadda sagama hor imaanin. muuqaalkii koobanaa ee xalqadii la soo dhaafana maba uusan ahayn dagaal uu ku soo tala galay labada dhinacba, laakiin waa isdagaalin jabiye. waxa kale oo arkaynaa Cusmaan iyo Lucas oo is hortaagan. waa mar uu qabiilkiina ugu yimid arajinayo. Cusmaan waxa uu leeyahay markaasi goobta dagaalka waatana waa noo furan tahay, raggii dagaalami lahayna waa joogaan, ee adiga banaanka skeen ayuu ku leeyahay. kaas oo ku cadeynaya Cusmaan inuu mar walbeeto diyaar u yahay markaasi inuu Lucas ka hor imaado dagaalna uu la galo. kulay goosgooska dhacdooyinka ku jira intaas ay ahaayeen, waxayna ka tageen waa ma filayo kulay waa warkii iska koobnaa. ama muuqaalka horeeto su'aal ay ku su'aalo oo ahayd markaasi ninka lagu magacaabo Ilbay yaa dhalay ayaan isweydiinay maadaama uu sheegtay xalqada marka la daawanayo isaga waxa uu leeyahay markaasi waxaan ahay wiilku uu awowga u yahay Sunguurta Kiin ina Suleymaan Shaah. oo ma Sunguur ayaa dhalay mise Sunguur qof uu dhalay ayaa dhalay? taas ayaa markaasi xoogaa tuun ku jira oo warka wali ma caddo. haddii ninkani Sunguurta Kiin oo asaga awowga u noqdo, asaga iyo Cusmaan waxa ay noqon doonaan markaasi wiil iyo adeerkiisa. ama haddii Sunguurta Kiin oo isaga dhalay, isaga Cusmaan walaalo noqon doonaan oo ilmo adeer ah. muuqaalkiitaas aan ku soo koobaya aad iyo aad u mahadsantihiin. muuqaalkiina la gareeya channelkan inoo subscribe gareeya. intaan ku kulmi doono muuqaalkiisa waxaa idinkaga tagayaa salaanta salaamka. salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.